السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامة أصحابتي دان جعلهاي سو دواذا مركو ugu horeyso maanta waxaa inoo wadaa qisadeeni qeybteedii labaad. qisada ayaan dhameystireynaa baarti 2 qisada abaayadii ku dhacday. marka fiidiyooga ka horeeyay baarti 1 ayaan kaga soo hadlay. qofkaanan oo si fiidiyooga soo arkin oo kan u horeeyo waxaa leeyahay fiidiyoogan iyo mid baa ka horeeyay, midkaasi soo daawo markaasaad fahmaysaa fiidiyooga meesha u socdo iyo meesha ka yimid. marka inta ila socoteen waa mahadsantihiin. qisadeena qeybteedii labaad ayaan dhameystireynaa. abaayadu waxay dhahday markii oo waxaan mareynay Soomahan markii ay hadday xanuunsan tahay xitaa aanan daawo loo gadeenin. abaayada guriga wareerteeda ku nooleed oo ku silicsaneed oo ku rafaadsaneed oo maaragtay daryeel aanan ku haysanin oo shaqaalo guriga ka aheedi oo gurigaasiitina way ku noolaayeen gabdho oo 3 gabdho kale oo hawaryarteeda dhashay. gabdhahaasina wax ay bartaan iyo 2 wiil oo hawaryarta dhashay sidoo kale wiilashan wax ay u bartaan oo guriga ka gabadhan kaligeeda shaqaale ka ah. dee hawaryartaasi hawaryar lama dhihi karo, waa musiibo. bini'aadankana way kala naxariis badan yihiin sida hor idinkugu sheegay. dad bini'aadanka isku mid maahan. 5 farood si aysan jin u ahayn ay bini'aadankan jin uusan u ahayn. bini'aadanka ma sinna sidooda banaan, way kala naxariis daran yihiin, wayna kala naxariis badan yihiin. marka ilaahay hanagu daro kuwa naxariista badan oo ummadda muslimiinta u naxariisata meel walbay joogaan saqiir iyo kabiirba. marka naxariistu waa shay muhiim ah. qofka naxariis haduu leeyahay oo maaragtay wax walba oo sameeyo oo naftiisa la jecel yahay iyo caruurtiisa uu la jeclaanayaa caruurta kale iyo nafafta kaleente. marka gabadhaneetu waxaa mareynay hadday xanuunsan tahay xitaa aanay isbitaal la geeneynin oo daawo la daryeeleynin, bis lacag yar la siinayo farmashiida kaniin kasoo gada la dhahayo xanuun baabi'iye ah. waxaan rajeynayaa codkeyga si fasiix inuu idin soo gaarayo. marka waxay dhahday abaayadan waan ku silacay noloshi, silac waxaan ku jiray oo sidaas ayaa kusoo qaangaaray 15 jir 16 jir sidaas ayaa kusoo gaaray. guriga waxaa yaala qasaalo, waa guriga weyn oo villa ah sida hor idinkugu soo sheegay. qasaalada dharku lagu dhaqaaya taalo markii dhar badan dadkaas familka guriga ku nool dharkoodii dhaqitaankiisa ani sugaysa subaxdii hore fakti hore markaas soo kaco dhar dhaqida aan bilaawo waxaa galaya ay dhahday waxaa laga yaabaa in ay korontada tagto markaas gacantii ku dhameystiraa lay dhahayaa meeshii laga dhihi lahaa xitaa xaree oo intaaneti beri markii ay korontada imaado camal ama hadhow markii koronto soo laabatad maaragtay dhameystiranaysaa leema jixinjaxaay leema naxariisanaay. roobaa da-aayo qabowga jiro roob markuu da-aayan waa dareemi kartiin qabowga laguma jiri karo. waxaa ku galaya qaboob adigoo xanuunsan roob kuugu da-aayo ayaa dhaqidii gal lay dhahayaa dhameystir gacantaada ku dhameystir. waxaa arkayaa subaxdiisa u fadhiisto casirtii anigoo ka kacay oo khasaaladiyo maaragta mararka qaar way halaabaysaa khasaalad mararka qaar korontada ku tagayso iyadoo oo maaragta ku jirto gacanta oo lagu dhaqaayo waay maahan mid automaticada. hadda waxaa la gaaraybo mid oo la isticmaalo automaticada. marka intooda badan guryaha waxaa yaalaan qasaalada oo adiga aad dhaqaysid oo markoo dhaqo majiijinaysid oo raacsiis oo aad shaqo kaaga baahan ma fahante. marka khasaaladaasaa guriga taale aniga raashinka karin jiray, banaanka aniga kasoo adeegan jiray, guriga aniga nadaafadiisa la iga rabaa. subaxdii ay dhahday 11 saa u soo kaco waa hadda 5 subaxnimo yaasaa u soo kacay dhahday. habeenkii markii mareyso 12 seexan jiray ama 6 saac habeenimo hadba sida u taqaaniin ayaa seexan jiray. aniga dhanba intaan jiif waa in yaro oo 5 saacadood ah ama 6 saacadood ah waa inta aniga aan jiifo. leemaba ogola nasiina dhan leema ogola. dadkaasoo kale maxaa leedin waa arxan daro. xitaa hadaysan familka ka dhalan lahayn xitaa qof bini'aadan sidaas loolama dhaqmo wallaahi waa xaaraam. qofka inaa oo bini'aadanka markuu hool haayo inaa saacidaysid waay. maalintaa dhar dhaqaaya dhahday jikadaas in la iga galo raashinka la iga kariyo leema sameynaya dhahday. waxa mid oo 3 gabdhood mida ku jirtay dhahda oo naxariis leh mida dhexda
mid oo dhexda ku jirto calaashaan oo dhexdhexaad ah midaasaa xoogaa naxariis ku jirta dhahday markay imaado jaamacad ka imaado masiixanayso qada iga karin jirtay way saacidayn jirtay dhahday gabadhaaseytiya waxyaar naxariis ah ilaahay qulubteeda iisoo geliyey mooye labada kale waa yuhuudiin anigoo sidaas u sidaalan ee dharka ay soo siibaan igu soo dari jireen dhaqidee dhahday iyo dhaq naya markii wax banaankii ka rabaa way soo kicinayaan kaale waxaa sii samee kaale waxaan ii soo gad anoo fadhi dhammiya arki karaa indhahay ma isaari karaan oo ayaga taleefoonay haystaan markay imaadaan waxay ku kala ordayaan sariiradooda taleefoonay qabsanayaan kaale wax ii soo gad banaanka wax iiga soo gad ay leeyihiin haddaan diiday dhahda madaxaasaa la iiga koombinaya madaxa timaha la iga qabanaya iga jiijiidaya shaqaale xunaad guriga ka tahay maxaa moodaa waa kibirtay ay leeyihiin dhahday war waxaa jira dhahday 16 jir haddana waxay dhahday waxa ekahay gabar oo 10 jir ah saa da-deedii iyo jirkeygii isma lahan ani dhan gabar leh waxaan ahay caata inay ka badato cuqdad ka buuxdo oo cuqdad miiran ah cuqdad wax fiican ma ah waa cudur labaad moogta depression xitaa qofku ku rida waxaa gaari dhaaqan heer nafteedii aan nacay oo inaa isdilo ma aragtay inaa isdilo ayaan kusoo dhawaaday balka warama qof dhan naftiisa nacay ma jirta inuu isdilo wax lee ka keenayo dhibaato gabar yar oo hadda nolosha uu hor leh oo mustaqbal leh inay isdisho maxaa sababayo dadkay ku la nooshahay sababayo run ahaantii marka wixii sidaas ahaatay waxay dhahday maalin maalmaha ka mid ayaa suuqa soo aaday suuqa wuu naga fokiyaa sida hore idinku soo sheegay fiidiyoo ka hore suuqiyaa aaday dhahday anigoo suuqa u socdaa wiil ilaahay amarkiisa taxi saaran ayaan waxa ku arkay dhahay xaafada hore wiilkii ilaahay amarkiisa u istaagay muqsii dhaweeyaa oo dhahay maskaxdeedii way diidaysaa inaan galo qalbigeygana waa ogolyahay inaan gaari karo isii dhaweeyo anigina waa gabar daalana iska ahay marka cabaarsa u taagnaa oo haddana gacanta isoo taagiyey oo dhahay muqsii dhaweeyaa baayo kaala soo kor waa ku anaa ku dhaweynayay xaggii u baahantahay waa kore gaarigee dhahday gaari yaroo tagsiyaroo ahaa waa kore wuxuu dhahay xaggii u baahantahay suuqaasa u baahanaya dhahay suuqiyoo igeeyey marka intaa wadada sii socono dhahay duruufta wejigay ka muuqato arkay markaasoo dhahay waa i wareystay magacaaga xaafada amaad degantiin ani xaafadahan waa ku cusbahay wax saasoo camal oo i weydiiyey markaasaa waa u jawaabiyey dhahday wuxuu dhahay wiilka markaan dhahay waxaa la joogaa cid aan u shaqeeyo gabar yaraa tahay wax ma baratid miyaa wax ma bartaa dhahday wiilkii wejigiisiyaa isbedelay indhihiisiyaa ilinka imaaday run ahaantii markaa u sheegay wax sidaas ahni wax oo sidaas u badan ma aragta ani asma kala hadlin maalintan isku hereysiyay ahayd markaas oo dhahay subaxdii xiliyadan oo kale inta soo baxaa waxaa sii aadaa magaalada shaqa sii aada hadda aad u baahan tahay inaan kusii kaxeeyo ma aragtay waa isugi kartaa camal xiliyadan oo kale ma soo baxdaa an maalin walba xiliyadan oo kale soo baxaan dhahay qudaar wax kasoo adeega suuq qudaar kasoo gadaa marka okay oo dhahay beriya is arki doonaa insha allah suuqii oo iigu dejiyey aniga qudaarteedii soo gatay waa soo laabtay guriga markaa kusoo laabtay shaqadeedii sidaas u watay maalinta labaad markii la gaaray wiilkii haddana sidii kale is aragnay waa isii waday marka wiilku wuxuu dhahay wax telefoon ma haysataa waxaan kula soo xiriir maa leedahay lacag yaro isii lacagta waan diiday waxaa ku sameeya malahanaa dhahay cidaa u shaqeeyaan dhahay marka ugu horeysa ma u sheegin inaa habaryarteeda la noolahay because shaqaale lebkaahay guriga soomaa cidaa u shaqeeya lacag ma qaadataa dhahay laakiin wuxuu dhahay telefoon ma haysataa telefoon ma haystiyaa dhahay mana aqaani sida loo isticmaalo waa burunteediyo weligay telefoon ma qaadanin mani arkin oo sida loo isticmaalo ma arkin gabdhaha haystaan waa arkaay dhahday telefoon waaweyn marka wuxuu dhahay wiilka telefoon yara kusoo gadayaa qarso waan ka diiday anigoo ka diidan on dhahayo ma aqaani walaalo sida loo isticmaalo telefoon iga daa marabe telefoon iyo baqtigiisa ha iga maqnaaday iga daa mayo dhahay waa igu qasbay suuqi intaa sii socono magaalada suuqii oo dhexgeliyay telefoon yar oo ii gaday wuxuu ii geliyay isla markii laf am simkaar oo ii geliyay lacag oo iigu shubay telefoonkii markaasoo dhahay waa ka soo wacaya maalintii ama habeenkii waqtiga adig jaanis haysatid wuxuu ii saaray gariir faraqa gasho dhahay jawaabka gabdhaha
oo dumarka isticmaalaan jeebab ka mid ee gasho caloosha inaa faraq la gashto. Faraq waa taqaaniina u maleyna baatiga iyo gorgorada inta u dhexeysa. Marka waa ka qarsaday dhahda guriga marka imaad habriirteedii walaalahayga gabdhaha oo habriirteeda dhashay waa ka qarsaday moobilka haweenkii marka jaanis aan helo ama maalintii gabdhaha intay jaamacad ku maqan yihiin oo jikada ku jiro oo habaryarni marna waxay aadaa magaalada iska aadaa marna gurigay joogtaa markay maqan tahay badana ka faa'iideystaa wiilka waxa ay dhahday inuu isoo wacaa bis waa u baaqaa ani asoo isoo waco waa sheekeysanaani asiga markaas sheekadeen sidaa usii wadneed waxay dhahday wallaahi wax guriga iga bixiysa u rabi mar ma guriga ka tagtida iga taagneed because waa guriga qaatiyana ka taagnaa maalin aanan ooyneenin malahan dhahday maalin kasta waa ooy jiray dhahday oo habeenkii waa ooyn jiray maalintii waa ooyn jiray noloshaan ilaahay sidaan kaligaa muxuu ku yeelaa isdhahay jiray dhahday because diini celiyan ma lahayn dhahday oo ma aqoonin ma fahamteen marka silcaasa ku jiray wiilkii waxa isoo dhahay diyaar mu tahay inaa ku guursado waa yartahay waa ogahay laakiinse waxaa jeclahay inaa ma aragtay maadaama uu familkan aad ka sheeganaysid oo waxaan oo u shaqaysid lacag ay ku siinin ma aragtay haddii aan ku guursado reer yeelatid ka waran sida u aragtaa oo waxaan dhahay dhahdo okay waa ogolahay diyaara u ahay marka wuxuu dhahay wiilka hay hadda diyaar u tahay soo bax maalinta maalin u balamiyay soo baxo dhahay maalin hebel marka waa bixina waa ku soo mehersanaa camal oo dhahay hay maalintii la gaaray waan baxay waa soo baxay wiilkii isoo aragnay oo balansanena is aragnay marka uu i waday wuxuu ii geeyay sheekh weyn oo xaafada markaas oo dhahay sheekhi adeer aawe aabahaagii waalidiintaadi yaa weli ka ahoyo dhahay sheekhi oo markaas oo xaafada oo caanka ahaa markaasa waxaa dhahay xaafadan waa meel ka fogay oo geeyay dhahday wiilka markaas si aan loo ogaanin xaafadeena ma fahantay marka wuxuu dhahay adeer aawa weligaaga waalidkaaga markaasa waxaa dhahday ani waa dhintay aabaheyga hooyadeedina way maqan tahay abtiyadeedii waxeegiin ma aqaanay dhahday dee keliga qof keli socota ahay hay magacaagu saddexan sheegaa la dhahay magaceygiyo saddexan markaa u sheegay odaygii wuxuu dhahay ma hebelkii dhimanayo shilka gaariga ku dhimanayo miyaa ku dhalay haan ku dhahay ani magacaas bas aqaan iyo qabiilkeyga intaas bas leebka aqaani familka dhan markaas iyo ninkii dhan wuu ooytin indhihiis waa igu soo duubsamay adeer walaalkeygiyaa ku dhalay aniga adeerkaagiyaa ahay oo wuxuu dhahay waa qaadan waaye dhahda waa qaadan waaye wuxuu dhahay adigoo yar markii ayeeyadaada dhimatay ayaa habaryartaadana ku wadatay magaaladan way ka guurtay way ka tagtay anagana meelaha kaasoo xiriirina waan waynay oo intaasoo sano waxaa inuu gabar dhalay oo gabadhaaseti ay yartahay waa ogeyniyo dhahay laakiinse waqtigaas kadib ismaana arkin intaasoo sanaan kasoo wareegatay hadda waa 10 sano kadib yaa waa 11 sano kadib markaasa wuxuu dhahay adeer maxaa sidaan kugu galay maxaa sidaan kugu kalifay maxaa intee joogtay waxaa dhahdaa bas wiilku wuxuu dhahay wiil fiicanaa tahe haddaa gabadhan u baahan tahay inaa guursatid si oo xalaala lagugu guurinayay markaas soo baxuu dhahay gurigii uu isoo waday gurigii oo geeyay walaaladiisa i baray adeeradeeda kaleente iyo eedadeedii oo adeerkeyga qabo marka gurigii aan joogay maalmo wiilkii waa isoo doontay adeerkeyga waa igu daray markaas wuxuu dhahay wiil fiicanaa tahay waa kuu guurinaya gabadhan waa ku aqaanaan aqoona kuu leeyahay gabadheedana waa kuugu aaminaya marka sidaa kuugu aaminayn kasoo baxoo dhahay wiilka ani asiga waa isguursanay oo waa guri galnay marka guriga ii sameeyey oo magaalada ka baxsan magaalada dhan oo iga fogeeyey markaasoo dhahay soo dhawow adiga gabar yaraa tahay marka haddana maroonimo maaragtay uma qalantid waxaa ku sameynayaa waxbarasho ku sameynayaa private aadoo dhahay dugsi oo xaafad ku yaalan gal marka ani intaa adiga markaas adig diyaar kasoo noqoto idhahdid dee ani xaaji waa ikana markaaniti diyaara ku ahay markaan soo waxa idhahdid yaa qof hadda wax kasoo baxday tahay dhibaato
dhibaato kalena ma rabo inaan kusii geliyo. Marka waxay dhahday waqtiyaa ku siinayaa oo isku fahanno. Okay, wiilkii dhahday iima soo dhawaanin, ilaa amarkiisni inaako isqaw camal uma dhaqmin, oo laba qofood oo walaalo camal u dhaqmin, raashin u karnaa, wuu cunaay, dharkiisa u dhaqaay. Aniga dugsiga iska gala qur'aan bartay, alxamdulillaah rabbil caalamiin. wiil fiican oo boqor ilaahay ii soo diray dhahday, oo abaalkiisa waxaa ku gudo aanan lahayn. wiilkii haddana waxay dhahday hadduu ilaahay ku roon yahay wuxuu sameeyey baraafadkeedii sii dhiganayo oo waxaa sii bartay luqadii. qisadaaneeto horta way sii fog tahay, baarti 3 soo sameynaya insha allah ila socda. walaalihii aan jeclahay waa qaybta